dowladda Mareykanka ayaa saameyn xoogan ku leh arrimaha gudaha ee Soomaaliya marka ay timaado marxaladaha kala guurka oo ay dhinacyada siyaasadda oo dhan maqli og yihiin wararka ka yimaada xagga Mareykanka. safiirka dowladda Mareykanka u jooga Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto ayaa dhawaan u sheegay hogaamiyaasha Soomaalida inaysan marna aqbali doonin Mareykanku doorashooyin kala duwan oo ka dhaca gudaha dalka, sidaas oo kalena aysan aqbalaynin wax garab marsan dhammaan habraacyadii doorashada ee ay dhinacyada siyaasadda ee Soomaalidu ku heshiiyeen. weeraha diblomaasiyadda laga dheereeyay ee uu isticmaalay danjiraha Mareykanka waxay muujinayaan sida ay Mareykanka uga go'an tahay inay u hanjabto hogaamiyaasha Soomaalida ee siyaasadda oo u muuqda kuwo danahooda oo siyaasiga kaliya eeganaya marka ay timaado waqtigan xasaasiga. hadal jeedin uu ka jeediyay safiirku shirkii madasha beesha caalamka iyo Soomaalida ayuu ku bilaabay. It will be a very tough and violent fighting season as Shabaab gets waxay noqon doonaa xilli iyo dagaal adag maadaama Shabaab ay u diyaar garoobayaan ay gadaal u celiyaan guulahan ka gaarnay Shabeellaha Hoose, taas oo ay sameeyeen ciidamada xoogga ee dalka AMISOM iyo Danab. Al-Shabaab ma bartilmaameedsanaysa Shabeellaha Hoose oo qura, balse Galmudug ayay weerar xoogan ku hayaan si ay u gudbaan waqooyiga. sidoo kale Balidoogle iyo Muqdisho ayay rabaan inay weeraraan si aysan gadaal ugu noqon dhammaan waxqabadkeena sanadkii la soo dhaafay dhanka dayn cafinta, dawlad wanaagga, maamulka dhaqaalaha, waana si adag u taaganaana. dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka waa inay fuliyaan heshiiskii May 2017 lagu gaaray London iyo heshiiskii Baydhabo ee 2018 si aan doorashada u dhamaystirno maadaama dhammaanteen aan sidaas ku heshiinay. mucaaradka waxaan u qeexayaa inaysan jiri karin doorasho barbar socda, maya dib u dhac doorasho, maya lama bedeli karo heshiiskii 17 Sebtembar ee dhinacyada siyaasadda oo ay ku heshiiyeen. dowladda Mareykanka, bahda deeq bixiyayaasha iyo dhammaan saaxiibadeennu waxay ka walaacsan horumar la'aanta geedi socodka doorashada. waxaan ugu yeerayaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalku inay kala aragti duwanaan taxaliyaan. qof walba oo noqdo qaswade waan la xisaabtamaynaa. waxaanu samaynaynaa wax walba oo doorashada qabashada iyo xasilloonida aan ku xaqiijinayno. dadka Soomaaliyeed waxay xilligan u baahan yihiin midnimo, xasillooni iyo waxa loo dhan yahay in ka badan weligeed. haddaan maanta guul daraysanno, calabaryada oo dhan way lumi doonaan. sidoo kale guulaha aan tiigsanayno maalmaha soo socda gadaal ayay noqon doonaan. dowladda Mareykanka iyo saaxiibadeedu waxay waxbareen 1 milyan oo carruur ah, waxay abuureen 1 milyan oo shaqo ah. fiiri horumarka ballaaran ee dhaqaalaha, waxaana u muhiimsan in la ballaariyo dowlad wanaagga, in bulshada lala xisaabtamaan mas'uul walba oo Soomaaliya oo la doortay si mas'uuliyadiisana uu qaato. go'aanka adiga ayaa leh iyo annaga oo idil. dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, mucaaradka, musharaxiinta jagada madaxweynenimada, dhammaanteen waxaan si wada jir u gaari karnaa guulo waaweyn. laakiin kala qaybsanaantu waxaan u ogolaanaynaa inay shartu kor u kacdo, dhibtuna ay siyaado. waad mahadsan tahay. go'aanka annaga oo idil ayaa leh maanta. mahadsanid ra'iisul wasaare.